madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka arooriyadii hore kaga qayb galay xarunta guud ee taliska ciidamada Somaliland ku leeyihiin magaalada Hargeysa halkaas oo loogu soo xidhay tababar cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska Somaliland oo soo dhameystay tababar uga socday dugsiga tababarada ciidamada ee Somaliland ee Mandera kuwaas oo noqonaya dufcadii 29aad ee ka baxda dugsigaasi madaxweynaha Somaliland waxa kala qayb galay munaasabadaasi wasiirada wasaaradda gaashaandhigga arrimaha gudaha iyo taliyayaasha ciidamada kala duwan ee Somaliland Axmed Aw Cabdi taliyaha dugsiga Mandera iyo gaashaanle sare Maxamuud Ducaale oo ah hoggaanka tababarada ciidanka booliiska Somaliland oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxay sharaxeen ciidamadani iyo waxyaabaha ay soo barteen madaxweyne waxaa maanta farxad weyn oo ah inaad nagala soo qayb gasho munaasabadan xafladii xidhitaankii xafladii tababarkii ciidankii tababarka ku soo dhameystay dugsiga Mandera ee Lixle oo aan sacal lahayn u xidho maanta ciidankaasi waa ciidanka waa difcadii 29aad ee qaranka Somaliland si guumar ah bixin kaaga siiyo dugsiga tababarka ciidanka booliiska Lixle Mandera waa dugsi si istaba jooga loogu carbiyo dhalinyarada cusub ee ku soo deertay ciidanka booliiska saraakiisha iyo guud ahaanba ciidanka booliiska taliyaha guud ee ciidanka booliiska Somaliland Sareeye Gaas Cabdilaahi Fadal Iimaan iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo halkaas hadalka iska daba qaatay ayaa bogaadiyay ciidamadani waxa maanta farxad weyn oo inaad nagala soo qayb gasho laba munaasabadood oo xidhitaan tababaro ah ciidanka tababarka asaasiga ah ee dugsiga Lixle Mandera soo dhameystay oo dafcadii 29aad kuwaas oo ku baranayay nidaamka ciidanimo shuruucda kala duwan ee dalka ciidan la barayay dambi baadhista marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa taliyaha booliiska iyo dhammaan madaxda taliska ciidanka booliiska taliyaha dugsiga Mandera ee soo barbaarisay ee soo diyaarisay difcadda 29aad ee Mandera aad iyo aad baan u hambaleynayaa ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu bogaadiyay ciidankani tababarka soo dhameystay isagoo geesta kala fariin u diray maamulka dugsiga Mandera ee Lixle ardayda soo qalinjabisay ee maanta soo xidhay tababarkii wariyay booliiska ee maanta loo xidhayo aad iyo aad loo hambalyeeyo waana soo dhaweeyaa waana u ducaynayaa dadka Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan Puntland ee qayradaanta dheer ee qabaliga ah ee isilka awada waxa ka wanaagsan inaga oo iskaashada oo laba qaran oo laba dawladood oo walaalo ah oo isku afa oo isku diina oo isku mid ah oo wax istareen noqoneen waa Idruus Cabdillah Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa